shan ka mid ah waxbarida Ciise Masiix oo noloshaada hagaajin doona haddii aad ku dhaqanto ayaan idinla wadaagayaa. Markuu dhulka joogay, Ciise wuxuu ina baray jidka lagu farxo, nabadda lagu helo, iyo la noolaanshaha Ilaahay iyo dadkaba. Injiilku ilaa maanta wuu shaqeeyaa. Haddii aad isa raacdo adigoo ku dhaqmaya shantan uu ina baray, noloshaadu waxay ahaan doontaa mid farxad badan, macno badanna leh. Ilaahay iyo deriskaaga jeclow. Markii la weydiiyey qaanuunka ka ugu muhiimsan, wuxuu yidhi waa inaad Rabbiga Ilaahaaga ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan, iyo naftaada oo dhan, iyo caqligaaga oo dhan. Kan waa qaanuunka ugu horeeyay oo weyn. Ku labaad u eegina waa kan, waa inaad deriskaaga nafsadaada ka jeclaataa. Ayadaan soo sheegay waxay ku yaalaan Matayos 22:37-39. Markaan nacaybka ku bedelno jacayl, caradana aan ku bedelno naxariis, waxaan dareemi doonaa inaan u dhownahay Ilaahay, oo waxaan heli doonaa nabad buuxda oo nolosheena ah. 2. Ku noolow sharciga dahabka ama qaanuunka dahabiga ah. Matayos 7:12. Ciise wuxuu baray qaanuunka dahabiga intii lagu jiray wacdigii buurta. Haddaba wax kasta oo doonaysaan dadku idiin sameeyaan, idinku sidaasoo kale u sameeya iyaga. Si kale haddii loo dhigo ama aan u dhigo, dadka kale ula dhaqan sida aad rabto in lagula dhaqmo. Markaad sidaas samayso, waxaad xoojin doontaa xiriirka idinka dhexeeya Ilaahay iyo dadkaba, oo waxaad noqon doontaa mid faraxsan. 3. Rumayso Ciise Masiix. Yuxana 3:16 ayaynu wadajir u akhrinaynaa. Intuu Ilaah dunida jacayl u qabay, ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay, oo mid kasta oo isaga rumaystaa uusan lumin, laakiinse uu lahaado nolosha weligeed. Rumaynta Ciise Masiix waxay la macno tahay in la rumaysto isaga iyo waxbaridiisa. Haddii aad sidaas samayso, waad barakoobaysaa fi aakhiraba. 4. Si daacad ah ula xiriir Ilaahay. Ciise wuxuu ina baray inaan badino xiriirka Ilaaha Aabbaha jannada ku jira, waayo wuu ina jecel yahay. Wuxuu diyaar u yahay inuu ina caawiyo oo Ilaah aan kula xiriirno salaad, inagoo u mahadnaqayna, u weydiisano waxyaalaha aan u baahannahay oo dhan. 5. Si xor ah u cafi cid walba. Ama haddaan si kale u dhigo, si xor ah dadka oo dhan u cafi, adoo hagarashaba aanay kugu jirin. Si xor ah aynu cafino dadka bilaa hagarasho. Intii Ciise dhulka joogay, Butros ayaa wuxuu weydiiyey, imse goor baan cafiyaa walaalkay hadduu igu dambaabo? Ciise wuxuu ugu jawaabay, ku odhan maayo ilaa 7 goor, ilaa 70 goor oo 7 ah. Matayos 21:22. Markaan si xor u cafino kuwa kale, waxaan ku marti qaadi karaynaa nabadda Ciise Masiix iyo nolosha weligeed.